وردقدقة maxaa ka jira in Jubbaland ay gacanta ku dhigtay 42 askari oo ka tirsan ciidamada gorgor xogihii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya Ras Kamboni qasaaraha ilaa imikan aynu helnay xogahaas ayaynu ku eegi doonaa haddii aad nagu cusubteen fadlan ku soo biir page-kan oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran si aad halkan uga heshaan warbixino muuqaalo aan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino haddii aan ku bilaabo deegaanka Ras Kamboni degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxa ilaa imikan ka soconaya dagaal xoogan oo qasaare lixaad la geystay una dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada ka amar qaata Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kana tirsan kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland dagaalka oo saddex jihood ahaa ayay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sida wararku ay sheegayaan ay iska caabiyeen weerar kaga yimid dhinaca Jubbaland saraakiil ku sugan halkaas ayaa waxa ay xaqiijiyeen in qasaare labada dhinac ay soo gaartay isla markaana ilaa imikan dagaalka uu soconayo oo aan la xaqiijin karin qasaaraha inta uu leeyahay hase ahaatee war ka soo baxay dhinaca maamulka Jubbaland ayaa waxa ay guulo ku sheegteen dagaalkaasi iyadoo oo wasiirka warfaafinta maamulkaas uu si rasmi ah u shaaciyay in 42 askari oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandoosta gorgor ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay isu soo dhiibeen bartiisa X Twitter ayuu ku soo qoray wasiirka warfaafinta Cabdifataax Mukhtaar qoraalkan uu ku sheegayo in 42 askari oo ka tirsan kuwa gorgor ay isku soo dhiibeen dhinaca Jubbaland si wanaagsan ay u soo dhaweeyeen wuxuuna sheegay in si wacan ay ula dhaqmeen isaga oo qeexay in ay soo dhaweynayaan ciidamada kale ee doonaya in dhinaca Jubbaland ay ku soo biiraan sida uu ku qeexay qoraalka uu ku baahiyay bartiisa X na qorneed afka Ingiriiska warka ka soo baxay wasiirka warfaafinta saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga ee ku sugan Ras Kamboni waxa ay ku tilmaameen mid been abuur ah isla markaana la doonayo in lagu kala dhantaalo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanka Ras Kamboni waxa ay sheegeen in xilligan aysan jirin baahi ku qasbi karta ciidamada dawladda ee ku sugan Ras Kamboni inay ku biiraan dhinaca Jubbaland waxayna sheegeen saraakiisha in ay dhinacooda diiwaan gelinayaan xiriir kala duwan oo la xiriira ciidamo iyo saraakiil ka tirsan kuwa Jubbaland oo isu soo dhiibaya dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya dagaalka ka soconaya Ras Kamboni wararka ka imaanaya geesta kale waxa ay qeexayaan in sarkaalkii hogaaminaya ciidamada Jubbaland ay dawladda federaalka Soomaaliya gacanta ku dhigtay soona bandhigi doonto marka uu qaboobo dagaalka xoogan ee imika ka soconaya deegaanka Ras Kamboni ee degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose dhowr jeer oo hore ayaa digniino kala duwan laga bixiyay in isku dhac ciidan uu ka dhici karo Ras Kamboni waxaase jirta dhinacyadan in abaabul iyo dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka wadeen deegaankaasi Jubbaland ayaa saddex jiha ka weerartay saakay deegaanka Ras Kamboni iyadoo oo duleedka deegaanka Ras Kamboni gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Manaani halkaas lagu jibiyay ciidamada Jubbaland sida xoguhu ay sheegayaan isla markaana laga gubay gaadiid dagaal gacantana lagu dhigay askar fara badan oo Jubbaland ka tirsan oo deegaanka Ras Kamboni weerar ku ahaa duleedka ayaa looga hortagay waxa kale dagaalka kadib dhinaca badda ka bilowday dagaal xoogan oo ay ku soo qaadeen doomo ay isticmaalayeen ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland wixii warar ku soo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga ayaad ku daawan doontaan nabadgelyo